ayaa ku dhuftay xeebta Eegaan ee Turkiga ee waqooyiga jasiiradda Greek ee Samos, halkaasoo ku burburiyey guryo dad badan ay ku dhinteen tiro ahaan 24 qofood. Dhulgariirka ay cabirkiisu yahay 7 ayaa haleelay gobolka Izmir ee Turkiga sida ay sheegtay USG. Turkiga ayaa cabirka ka dhigay meel hoose ah 6.6 iyadoo ay sheegtay in 20 qofood ay ku dhinteen 708 kalena ay ku dhaawacmeen gobolka Izmir, halka Samosna 2 dhalinyaro ay ku dhinteen. Mas-uuliyiinta Izmir oo ah xarunta gobolka ayaa hadda sameeyey aag teendho ay ku xanaaneen qiyaastii 200,000 oo qofood oo habeenkii ay seexdaan, iyadoo laga cabsi qabo dhismayaal badan ay ku dumaan. Maamulka ayaa sheegay in 700 oo qof oo laga soo galay guryaha hoostooda. Samatabixiyaashu waxay sii wadeen inay qodaan godad shub ah iyagoo rajeynaya inay helaan dad kale oo shubabkaasi ama guryahaasi dumay ku hoos jira. Hay'adda lagu magacaabo USGS ayaa waxay sheegtay in dhulgariirkan laga dareemay meel fog sida Athens iyo weliba Istanbul oo ku dhuftay dhulgariir gaaraya ilaa 10 kiilomitir oo ah 6 mayl, inkastoo saraakiisha Turkiga ay sheegeen in dhulka ka hooseeya 16 kiilomitir. Turkiga iyo Greece labaduba waxay ku fadhiyaan khadadka cilladaha dhulgariirku waa wax caadi ah inta badan ka dhaca labadan dal. Magaalada Imris oo ah magaalada saddexaad ee weyn dalka Turkiga ay ku nool yihiin ku dhawaad 3 milyan, waxaa laga arkayay dad badan oo ku qulqulaya wadooyinka iyagoo argagaxsan iyo cabsi kadib markii dhulgariirku ay ugu yaraantii 20 dhisme ay u dumiyey dhulgariirkan. Muuqaallo la soo dhigay baraha bulshada oo muuqda inay muujinayaan hal dhismo oo dhowr dabaq ka kooban hoos isugu dumay, sida ay ku soo warantay qaar ka mid ah wariyaasha iyagu ka howlgala wakaaladda lagu magacaabo Anadolu. Muuqaallo kale ayaa muujinaya dadka deegaanka oo iyagu raadinaya dad inay ku hoos jiraan dhismayaashaasi burburay si loo badbaadiyo. Sidoo kalena waxaa la sheegay in macallin Ingiriis ah howlgab ah oo ku nool magaalada Urla gobolka Izmir inuu sheegay inay ahayd ruxitaan aad u xoog badan kadib markii ay dareemeen in arrintan ay tahay dhulgariir ku soo foolay gobolka.